mudanayaal iyo marweyn dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay hooyooyinka dhalinyarada odayaasha siyaasiyiinta iyo dhammaan qof kastoo magacuu kaga soo qayb galay iyo marti sharafta khaaska oo si gaar ah iyagana aan u salaamayo jooxa iyo Khaatumo State dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa kaloo caawa ku xidsanaya anoo xusaya gudoomiye dulmidiid oo inaga maqan garaad Cumar Dool Xirsi iyo gudoomiye ku-xigeenkii Suldaan Maxamed Bade Suldaan Cabdi labadan nin oo iyaguna inaga maqan laba nin aad u qiimo badan iyagana salaantooda halkaas aan ugu diraya caawa laba xusin labadan nin marka aniga ayaa chance ka faa'iideysanaya markaan inta kaga soo baxa salaanta waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto chance-ka oo nu tacsiyeeyo dhammaan dadka abaarta ku dhintay iyo dadka ku waxyeeloobay intii dhimatay inuu Ilaahay u naxariisto inta dhibaatada ku jirtana inuu Ilaahay ka dulqaado laakiin waxaan ka xumahay in maanta deegaankeenna loo soo qaadhaamo isagoo bajad leh in deegaanada deriskeenna abaartu markay nagu dhacdo loo soo qarafeeyo iyadoo bajadkoodii meel la mariyaan la garanayn arrintaas soo arrinaan isla garanayna maaha in maanta deriska laga soo bariyo macnaha la yidhaha kaalaya dadkayga loo taakuleeya in deegaanka ay ka jirto shaqo la'aan baasan oo dhalinyarada ku dhacday midaan isla qaadanay Soomaaliyaduna marka aniga oo ku hadlaya magacayga waxa la yidhaha Faarax Xuseen Fure waxaad ka wada warqabtaan in wadanka dawladda Itoobiya maanta dib u heshiisiin la gelinayo in doorashadii meesha ka dhacday lagu tilmaamay doorasho cadaalad darro inay ahayd oo ay dad badan ka dhiidhiyeen deegaankeenana waad wada ogtiin in ururkooda la foo horeeyay uu qaadacay doorashadii ka dhacday oo xaraan ku tilmaamay marka anoo chance-yada fara badan ka faa'iideysanaya waxaan idin ballan qaadayaa dadka ka soo jeeda deegaanka inaan ahay shakhsi ka bedelan shakhsiyadii hore ee deegaanka iyagu soo shaqo tagay oo aan isbedel badan ku samaynayo idinkuna taageerada koowaad caawa halkan iga taageertaan bay u taageersantiin aan musharax madaxweyne noqdo si fiican idima maqlo bay ugu taageersantiin aan idin matalay idinka halka jooga okay anna waxaan idin ballan qaadayaa in sinaan cadaalad iyo dadka oo la kala soocayn iyo wax qabyaalad la yiraahdo halkaan ka dhameeyo waxa kale oo idin ballan qaadayaa shanta wiil ee walaalaha ee jigjiga ama jooga gobol kasta oo kamid ah wadanka ee shahaadooyinka wada haysta ee guriga barkaday inay dhamaantood helaan shaqo oo ay macnaha shaqaaleynta xagga aan ka bilaabo waxa kale oo idin ballan qaadayaa abaarta Ilaahay baa keena laakiin in macnaha aan sameeyo koortag inayna dib dambe aan loogu soo dawarin dadweynaha ku nool dawlad deegaanka كل هذا معناه برنامج كان وتلا قلي هل كبس وكوبي كرو لكن يضاف فاسن كل وضوار كدونتان وحكلون مال عليا أورك دول مديد سواق من قابيي حفلة دول مديد هقول يستو دول مديد قول هاد بعضهم ما أسند يصير شرفت لي يقول سود ويسين إن الحفلة دي نركها الله مشرح الحياة ومدى الصوماليات بانهاي سودوين بان ذيك بانهاي آد بان ذي السلام يا دمانتين سلام عليكم